puntland ha noolaato puntland ha noolaato soomaaliya ha jirto inta haddaan ku yimino xafladan sida la sheegay waxa weeye xafladaha waxaa loo sameeyaa in lagu xusuusto wixii horumar la soo maray taariikhda in dib la isugu sheego si lagu xusuusto wixii dadku waayaha dambe si u tixraacaan puntland taariikhdeeda taariikh dheer bay leedahay magaca puntland haddaynu sheegno waa arrin faceel weyn waxaa la yidhaahdaa puntland waa dhulkii facaweynaaba taa macnaheedu waxa weeye siday ku timi kelmadda puntland iyo degaanka puntland waxaa la yidhaahdaa dhulkaas waa dhulka loo yaqaano dhulkii muxuu ahaa puntland haddaan intaa ka soo degno degaanka puntland wuxuu soo maray maraaxil badan waqtiyadii ka horreeyey gumaysiga ama ingiriiska ama talyaaniga wixii ka dhameeyey oo markay yimaadeen gumaysiga dhammaan dhulkaasi mar walba wuxuu lahaa heraarkiyo maamul dad maqaawiira oo leh xikmadda ismaamulka iyo kala damaynta maxaa la yidhaahdaa bilowgii gobonnimo doonka dhulkii ay ka timi ama ka asaasantay ama dadkii fikirka lahaa waxay ahaayeen dadkii reer puntland bay ahayd waxaa ka mid ahaa dadkaas yaasiin xaaji yuusuf oo keenay ururkii s y l waxaa ka mid ahaa maxamed cawaale liibaan oo ahaa ninkii keenay calankan soomaaliyeed lahaa muxuu ahaa soo saaristiisa waxaa ka mid ahaa inay soomaaliya ay dowlad noqoto markii fikirka dowladnimo uu hogaaminayay ururkii s y l iyo ururadii la ohan jiray u s b in soomaaliya ay israacdo fikirka dadkii ka dameeyey waxay ahaayeen dadka reer puntland waxaa hormuud ka ahaa suldaan maxamuud cali shire waa taqaaniin taariikhdaasay leedahay degaanka puntland waa degaan mataqaanaa ku abtirsada muxuu ahaa horsocodka iyo dowladnimada haddaynu intaa ka gudubno waad ogtihiin waktigii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya 91 ilaa 9 sano bay sugaysay puntland inay dowlad soomaaliyeed dib u heshiisiin la galo dadku isu yimaado soomaaliyeed waad ogtihiin oo muqdisho nabad waadi waxay ka abuurmay nabadiid dad nabadiida ka abuurmay ilaa iyo maantana waa jirta meesha la yidhaahdo waqooyiga la mid bay ahayd oo dhinaca hargeysa waxa weeye waxaa ka abuurantay dad iyana nabadiida arrintaasi waxay keentay 9 sano inay reer puntland sugaan in isu imaatin soomaaliyeed u yimaado 9 sano ka bacdi 1998 markii la daalay bay mudnaatay inay puntland abuurato puntland halkaasay ku abuuratay 98 wixii ka dameeyey waa la socotaan waxa weeye waxay noqotay astaanta midnimada soomaaliyeed maanta waxaa la yidhaahdaa puntland waxa weeye waa hooyadii soomaaliya maxay ku nisbaysatay waxaa lagu qabtay shirarka koowaad waxay noqotay meeshii miisaanka u samaysay adduunku arkeen ummad doonaysa dowladnimo iyo kala damayn inay ka timaado degaanka puntland markii koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga soomaaliya labaduba ay noqdeen meelaha ummadda lagu xasuuqo oo lagu bahdalo puntland waxay noqotay meesha horumarka leh meesha dadku ummadda isugu timaado waxaan leenahay puntland ha jirto waxaan leenahay puntland ha hirgasho waxaan leenahay maanta waxay ku daaldegaynaa 11 guurada waxay noqonaysaa meesha soomaaliya asaaska u ah maanta waxaan khudbaddu waa dheeraan kartaa laakiin waxaan kusoo gebagabeynayaa sababtu waa maxay dad badan baa iga damaya waqtiguna waa kooban yahay dad badan baa saacadda fiirinaya xaaladda maanta soomaaliya ka jirta waad ogtihiin haddaad saaka dhegaysanayseen method gaaban VOL muqdisho waxaa laga bilaabay ururin dadkii reer muqdisho odayaashooda shir jiraayad bay hubka laba qaali war ninka raba inuu nabad ku noolaado oo dowladnimada raba inuu muxuu ahaa uu loogu adeego oo haddana le aniga hubka laygama qaadayo iyo nin kale ee puntland ku nool ee booliiskii leh ee nidaamkii leh sidee dowladnimo u wadaagaya marka
midna wuxuu leeyahay hubka laygama qaadi karo reerkaygaan leh anigaa leh qabiilkaygaa leh midna wuxuu leeyahay dowladnimada iyo nidaamka dawliga ah baan rabnaa haddaan nahay shacabkii Puntland inaan raacno waa sax weeye go'aanka ay qaadatay dowladda Puntland arrintii la sheegay ayaantii dhaweyd gobolka Mudug ma raaci karo meel aan ahayn Puntland gobolka Mudug wuxuu ka tirsan yahay waa dowladda Puntland waxaa la rabaa shacabka reer Puntland meelay joogaan hadday joogaan Canada iyo hadday joogaan meel kale inaad isgaarsiisaan deegaanka aad leedihiin inaad daafacataan oo sidee ku daafacaynaa waxaan ku daafacaynaa arrinta rasmiga ah oo ah dhulkaas deegaanka waxaa leh oo maamulka leh waa Puntland weyn taasaynu hirgelinaynaa taasaa laydinka rabaa inaad isgaarsiisaan salaamu calaykum